marka hore anoo ku hadlay wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Somaliland garabkaygana uu taagan yahay wasiirkii warfaafinta iyo dhammaan taliskii guud taliyihii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland taliye ku-xigeenadiisii dhammaan saraakiishii waxaan saaka halka ku qabanaynaa shirka jaraa'id aan rabno inaan ka warbixino weerarkii gardarada ahaa oo qaawna oo saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya Puntland saaka markay waqtigu ahayd 5:00 bay laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aag ba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si mugle bay isaga caabiyeen dagaalkii bilaamay 5:00 wuxuu soo gabagaboobay abaari 10:00 labada aag ba xadle baa loogu jabiyay waxaa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska oo ayaga god qaboobe waa la dhaafay marka halka la marayay xabadii joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukaraq 7 kilomitir difaaca ka horeeya degmada Tukaraq wadartu halkaas ay istaagtay ciidanku si looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacaa laakiin guushii maantana dhinaceena ay ahaatay warku waa kaas khasaar waa jira khasaaruhu dagaaladu dhaco meel khasaar ko labada dhinac baa khasaar waa jira xogtii rasmiga ahayd wali maanu soo ururin laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo labadaasba waa confirm waxaa kaloo iyana jira ciidamadooda khaaska sidoo tababaran oo ciidamada badda marinka oo loo yaqaano Saracen iyana dagaalka ku jireen iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada ururno xogta baanu insha Allah wixii marxaanti iyo evidence ama cadeyna aad arki doontaan sidii markii hore u dhacday hadda iminkan waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka warfaafinta Gurub Barwaaqo taan sorry kelmad baan dhahay intaas waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba hambalyo iyo bogaadin u dirayaa soo majeestayaasha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland saakana si mugle isaga caabiyay weerarkii lagu soo qaaday iyagoo goobtoodii difaaca jooga waa ogeydeen maalintii horena saasay u dhacday difaaca weerar baa lagu soo qaaday weerarkii sidii laga filayay si ka daranba way isaga caabiyeen natiijadoodana hore aan idinla qaybsanay tan maantana xogteeda insha Allah dhakhtaan idinla wadaagayna aad baad u mahadsantahay ku soo dhawaysay